marka hore waxaan salaamayaa wasaaradda waxbarashada gudoomiyaha ka socda iyo ayooda oo maanta isla socda oo iskuulka nala jooga marka hore iyaga yaan mahad celinayaa marka labaad waxaan iyaga ka codsanayaa in ay noo dhisan maxay heedaanay musqushi amba suuliga loo yaqaano waayo iskuulka waxaa dhigta arday aad u fara badan oo hablo waaweyn ay ku jiraan saa awgeed meeshan waa aad bay ballaaran tahay ilaa eegada waxaa la arkayaa qofka halkee sii socda meeshana geedo badan way nagu yar yihiin suuli la-aan awgeed gabadhu marka ay qabato waxay si socotaa in muddo ilaa xooga ah marka waxaan leenahay wasaaradda iyo ayoodhaba in ay dhisaan suuliga ugu horeeya wax la dhisi karo waayo hadday macallimiinta gulnaa usoo saareen waa halkayga oo waa ay sugi karaan macallin dadka sugi karaan maamul ana ahaan intaan waan sugayaa laakiin waxa ugu horeysa muhiimadda la saaraya waa suuli la-aan suuliga midda labaad waxaad jirta fasalada waa arki doontaan taabulowgu waa taabulow meesha lagu sibidhay weya wuu yar yahay casharka markaa xaad kaga bilowdid su-aasha kale taa kaa istaagaysaba waxaan u baahannahay taabulow waaweyn taasina wax qabadkaan iskuulka ka maqan oo nagu haysa cidhayri waxbarashada oo nagu yaryaraata 2 jeer masax iyo 3 jeer masax lagu dhabarsaa marka taabulow weyn oo casharka si fiican loogu dhamaystiro waa loo baahan yahay waxa kale loo baahan yahay fasaladu way saddex daloolaan waa intu si doona shaqo arki doontaan ay diidan fariisan fasaladu isku daloolaan gudida waxbarashadu waxay aasaaseen inay sibir ururiyaan macaya sibirka qaadi digaal ay siistaan dawladda ay ku sameeyaan inta ay dawladuhu imanayaan ay ku simeel gaarsiiyeen waa sax maanta dawladdu way noo timiday waana la gaarsiiyey waana insha Allah taala waa qaban doontaan waxa loo baahan yahay in fasalkii afraad waa dhameystirka kusoo dhameystiraya shanaad meel la geeyaa ma jirto fasalka shanaad meel maanta loo u baxayaan ma jirto iskuulka waxaan ugu talagalay inay sideedad marka ay gaaraan ay dugsiyada kale aadaan secondaryada gaaraan dugsiga shanaad meel oo fadhiista geedka hoostiisa u balana sanadkan ila fadhiisanayd sanad soo socda insha Allah bilaa gaarsiyo geedka hoostiisa ayaa u balana okay inta yaan u yeeso kusoo koobaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh سيدنا نبينا محمد ان ادبد ما سنتين مدينين ورقه ان يدوسغا بقل oo aan ahayn markii koobaad aan imaadno waxaan halkan maraya gudoomiyaha cusbaa ee wasaaradda waxbarashada Sheekh Cismaan iga iyo anagoo ayooda aad baan ugu faraxsanahay horta arintii gudidaan u tababarnay inaad fuliseen gudoomiye gudiyada waa la tababaray waxa kale oo la tababaray barnaamij la rajaal tujaylka oo dugsiyadan 20 dugsi oo degmadan ka tirsan lagu tababaray si carruurtu ay u keeni lahayd fikrado ay dugsiyadooda ka qabanayaan waxa kale oo la tababaray gudida waxbarashada sidii ay u garan lahaayeen waajibaadkooda mas'uuliyadooda maxay tahay gudida waxbarashada waa xiriirka u dhaxeeya bulshada iyo ardayda waxay kale oo supervise garaysaa ama ay eegtaa daba gashaa macallimiinta ma shaqeynayaan mise ma shaqeynayaan hadday shaqeyn waayaan gudida waxbarashada waxay awood u leedahay inay gudoomiyaha waxbarashada la xiriiraan u sheegaan wixii arqalada ka jirta gudida waxbarashada waa cid u qaadanta iskoolku waxa male uu dumaya aad baan ugu faraxsanahay inagoo halkan soo gaarsiiyay wax qabadkiinii ugu horeeyay sidii qorshaha horumarinta dugsiga aad ku dhajiseen ee ofiska ka muuqda gudidan dugsigu waxay dejiyeen gudoomiye qorshe horumarineed waxa ku jirta barkada waa sida balaankeeda uu ku dhajisan yahay halkaas aad baan ugu faraxsanahay inagu maadaama aad bilowdeen in gudoomiyaheenu uu dhameystirayo haddii aynaad bilaabin inuu gudoomiyo una arkeen inagoo bilaabay waxma kuma qabteen qofku hadduu wax qabsado iyo cid walba diyaar u tahay inay wax la qabato aad baan uga mahad celinaynaa in kastoo gudoomiyo safarkiisa ugu horeeyay oo ku yimaado degmada Lughaya ay tahay in barkadiinii dhagaxa aad dhigteen isaguna uu dhagax dhigo u dhameystirayo ممكن أحكي سود وين قدوميها إنه كيد هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. أرتوحنا سود وين دمان أرد معاملات دوكسية كدي ذا وحبرشة يا وليبا خاصة حنا سود وين قضية مسؤول كعمايل عليها كدوكسية أو ثمرتي جو بديت قليل إنه بالعروضها سيبي حلان. إن شاء الله وحنا نكسب القبضتين. قفكم مركو وحقبضوا ما أخلاق قدرة. أو ده وحي كران كلا قدرة. وحاولنا سوينا أوبد كين نبيه حلاننا. والكي جوهر إنسان نلاش كسر توجسي. ماشان هو حب
marka waxaan anu sii dhamaystireynaa ka wasaarad ahaan barkada wixii inta ka dhimanna sidoo dhamaystirno meel carruurta ubadka biyo ka cabaan idinka ka gudida waxbarashada maadaama tababar la nisiyay gudi kasta waxa loo tababarayaa bal in iskuulkiisa wax uga qaban lahaayeen waxa dhow jaaysid lagu siin doonaa gudida wanaagsan lacag ah in dugsiga wax kaga qabtaana lacagta wax kaga qabanayaan maadaama barkada helno baahida labaad inaguna waa baahidii suuliyada iyo gabdhaha bal in xagga u leexiyaan oo taana uga faa'iideeyaan iminkana waxaan dhagax dhigaynaa sii dhamaystireynaa inta ka hadhay oo aniga ka gudoomiyaan ama ka heer gobol aan ku dhamaystireynaa anagoo la kaashayna wasaaradii dhaxana waxaan aanu waashmaaka meesha waan ku raagay yaa dawladii hore haraad baa lagu qaaday wixii hore dawladii tagay raaceen xagga dambe ku dhisato way jabtay adba tamarteedii inta bay noqotay waxaan gudoomiye doonaynaa in loo dhiso oo haraad baahida kaga baxno xagaag iyo kulayla way soo galeen sida iminka waan ku gubanaynaa haraad bay leeyihiin daraan baan degta ku qaadayaa ma kafaynayo waa saxda haddii ilaahay dhaahdo annaga ballan qaadayna ka wasaaradayna barkadaasi loo dhiso iskuulkaas maadaama uu yahay meeshaasi xaga dana hadduu ilaahay dhaahdo barkada waan dhamaystireynaa annagana barkad wanaagsan inay dhisayna ka wasaaradana إن شاء الله أنت وحي خدم ليا أنك كوسارة دي هي ضمانك كرنا ما هو